waxaan jeclahay inaan tusno nin mucjisa ah oo bartamaha magaalada London jooga oo isla mar ahaantaa asagu wax uu ku tiirsan yahay ama ku fadhiya aan jirinin laakiin hawada fadhiya cagiisuna dhulka ay kor uga qaadan yihiin hortiisa waxaa taala daasad ay ku qoran tahay xarig ku xiran yahay oo sunuuda la siiyo uu ku aruursado iyo ul yar oo gacanta ku hayso daasadu ay ku xiran tahay si aan loogala cararin laakiin ninkaanu meel uu fadhiyo haba yaraatee aan hawada ahayn ma jirto bal haddaba waxaan eegaynaa markaan siduu u fadhiyay xaaladiisu say tahay waanu la yaro wareegaynaa weli waxaad daawanaysaan ninka odayga ahaa oo hawada fadhiya oo haba yaraatee saad arkaysaan bucurka fadhiya haddana gadaal ayaan ka soo maraynaa waa maalin ciidul adxaa dad fara badan ayaa halkan isugu soo baxay waxaad aragteen halkan wuxuu yaalla gooc cas oo markuu qabowgu soo dhaco uu ka wado ummadda taagan oo dhanna waxay la yaaban tahay ninkaanu siduu u fadhiyo kullina waxay ka qaadanayaan sawirro dadkuna way qoslayaan ayagoo la yaaban xaaladdiisa iyo sida ay tahay siduu ninkaanu u fadhiyo halkan bal markaan aan hoosta ka yara gelino waan yara fadhiistay si aan u eegno waxa uu ku fadhiyo cid garanaysa haba yaraateena ma jirto akaasi laga weyn saantaa yar baa shirmaan siinaysu salaamaya waa nin nooloo caadiya ma aha sana meesha yaalla oo hadlayaa wuuna sheekaynayaa gabadhaasaa tiri waa isla kaa sawiraya waa kaa garabka haysta waaba asagii oo romantiga hagaag